محاضرين kala duwan ka daawo TBN Tawfiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiq Broadcasting Network. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادني الله منه وإياكم أيها الإخوة. وحن إن شاء الله وليال هل كان كبلابنا تفسير القرآن الكريم إلهي إذن كيس وكبلابنا أيها سورة الفاتحة إلى سورة الناس. تفسير القرآن الكريم قرآنك وإلهي كلام كيسي عز وجل، وهذا الكي إلهي وأرلد نويا له وإلهي نوسر تقليي إن أن أخرين كرنه وإن أن فهم كرنه. أيا إلهي نوس جلعي سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إلهي سأسأل سبحانه وتعالى قرهان تفسير كقرآن كريم إن إلهي هذا الكيسة لفهمه waxa uu xambaarsan yahay waa diintii oo idil oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku ururiyay labada waxyi, quraanka iyo sunnaha. Quraanka markaa waxa loo dalay waa macnaha quraanka inaad fahamto Ilaahay waxa uu ka raba azza wa jal. walidaalika quraanka nabiga waxa uu fasiray malaku jibriil, wa nabiga alayhi salatu wasalaam saxaabadiisii buu u fasiray. way garanayeen afkooda ku soo degay, wixii ay ka ishkaal galana way weydiinayeen. saxaabadana iyaga taabiciinta u sii fasiray, taabiciintana taabiciinta ilaa yawmina hada saasoo nagu soo gaaray. tafaasiir aad u fara badan, culum aad u fara badan ayaa laga sameeyey quraanka fasirkiisa. mujalladaad aad u tiro badan ayaa quraanka laga fasiray. af kasta waa lagu tarjumay quraanka maanta alxamdulilah. marka intaana waxaa loo dalnay in la fahmo waxa ku jira hadalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo axkaam iyo akhlaaq iyo wacdi intaba ah iyo waxa khabar ah. marka wuxuu leeyahay al-Imam Qurtubi rahimahullah: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه. waxa haboon qofka inuu barto axkaamta quraanka uu ka fahmo Ilaahay xaqiisa subxaanahu wa ta'ala, wama farada calayhi waxa Ilaahay uu ku waajibiyay caza wajal. fayantafica bima yaqra'u wa yacmala bima yatluu, oo uu ku intifaaco waxa uu akhrinayo oo uu ku camal falo wuxuu akhrinayo. fama aqbaxa bixaamili lqur'aani an yatluu faraa'idahu wa axkaamah عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه. maxaa ka fool xun uu leeyahay al-Imam Qurtubi wuxuu leeyahay maxaa ka fool xun qofkii inuu akhrinayo axkaamta Ilaahay, yani oo quraanka qofkii uu xambaarsan yahay faraa'idiisa iyo axkaamtiisina uu akhrinayo oo waliba uu xifdisan yahay can dhahri qalbin ka akhrinayo, وهو لا يفهم ما معنى ما يتلوه, oo uusan fahmaynin macnaha uu akhrinayo, waxa uu akhrinayo macnahooda uusan fahmaynin. fakayfa yacmalu bima laa yafhamu macnaahu, see ugu camal falaya marka wax uusanba macnihiisii garanaynin. wamaa aqbaxa, maxaa ka fool xun an yus'ala can fiqhi maa yatluuhu walaa yadriihi,
in la weydiiyo fiqhiga waxa uu akhrinayo muxuu ka fahmay waxa uu akhrinayo yacni marka la weydiiyo oo uusan haddana garanaynin famaa mathalu man hadihi xaalatuhu yacni qofkaas xaaladiisu tusaale ahaan wuxuu noqon karaa ilaa ka mathali alximaari yaxmilu asfaaran iyo sida dameer kutubo fara badan oo culum naafica ay ku jirto aada u tiro badan dusha ku wada oo culayskiina uu saaran yahay waxbana aan kaga intifaacaynin hadalkaasuu ku mithaaliye sheekh imaam qurdubi wayanbagii lahu an yacrif waxaa habboon uu yidhi inuu kala yaqaan almakiya min almadani qur-aanka inta maka kusoo degtay iyo kan madiine kusoo degay inuu kala yaqaan liyacrifa baynamaa khaaطaba allahu bihi cibaadahu fi awali اlislaam si uu u ogaado waxa ilaahay uu kula hadlay addoommadiisa islaamka bilowgiisii wamaa nadabahum ilayhi fi aakhiri اlislaam iyo wixii uu ugu yeeray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu amray islaamka aakhirkiisa wamaa farada fi awali اlislaam islaamka bilowgiisii wixii la farad yeelay wamaa zaada calayhi min alfaraa'idi fi aakhirihi iyo wixii uu ku daray awalka wixii la farad yeelay wixii gadaal looga daray oo faraa'id ah falmadaniyu huwa annaasikhu lilmakiyi fi akhari اlqur'an qur-aanka madaniga ah oo madiine kusoo degay wuxuu nasakhayaa qur-aanka maka kusoo degay axkaamta badankeeda hadalkaa waa hadal aada nafiis u ah oo ku tusinaya in macnaha qur-aanka qofka akhrinaya uu yaqaan macnaha inuu yaqaan qur-aanka fasirkiisa yuusanba ku ahaaninin baxar ahoo yani culummada ku fogaatay culumta tafsiirka kale yuusan noqon laakiin inuu yaqaan waxa uu akhrinayo macnaheeda iyo xukunka iyo xalaasha iyo xaaraanta iyo waxa ku jira meesha inuu kala yaqaan hadalkaasu oo la jeeda sheekha wa qaala aydan imaam qurdubi wuxuu yihi qaala culamaa'una culimmadeena waxay yidhaahdeen alimaam qurdubi wuxuu ahaa culimmadii reer andalus magaalada qurduba dhulkan hadda sbain la yidhaahda ayay ahayd caasimadii muslimiinta ahayd waqtiyada ka mid ah halkii culimmadii halkaa ka soo baxday buu ka mid ahaa waa mufasir weyn oo caalim ah qaala wuxuu yihi culamaa'una culimmadeena waxay yidhahdeen buu yihi wa ama ma jaa fi fadli tafsiri can الsaxaabati wاtaabiciin famin dalika tafsiirka in laga qaato saxaabada ka yimid xaggooda iyo dadkii taabiciinta ahaa fadliga uu leeyahay waxaa ka mid ah buu yidhi ana caliy bn abi aalib dakara jaabir bn cabdillaahi wawasafahu bilcilmi cali bn abi aalib ayaa wuxuu ku sheegay jaabir bni cabdillaahi waa saxaabi isagana caalim ah wuxuu ku sheegay cilmi ayuu ku sheegay wasafahu bilcilm faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yihi cali jucilta fidaaka ha la iga dhiga mid lagugu furta adiga nafsadaadee tasifu jaabiran bilcilmi wa anta jaabir bn cabdillaahi ayaad cilmi ku tilmaamaysaa adiguna waa adiga caliyo waa ninkii baa tahay adiguna waa anta adna waxaa tahay ninkii la yaqaani ma adigaaba cilmi kusii sifaynayo jaabir bn cabdillaahi faqaala wuxuu yihi cali bn abi aalib radi allahu canhu inahu kaana yacrifu tafsiira qowlihi tacaala wuxuu yaqaanay jaabir bn cabdillaahi fasirka ilaahay hadalkiisa ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ina aladii farada calayka alqur'aana midka kugu farad yeelay qur'aanka laraaduka ilaa macaadin waa mid kuu celinayo yani noqosho meel loo noqdo kuu celinayo aayadda fasirkeeduu yaqaanay buu ninka waa caalim aayadda fasirkeeda inuu yaqaan ayuu wuxuu ugu tilmaamay inuu yahay nin aada iyo aada loo ammaano uu yahay waqaala mujaahid wuxuu yihi axabu lkhalqi ila allahi aclamuhum bima anzala allah dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay subxaanahu watacaala axabu lkhalqi ila allah dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay subxaanahu watacaala aclamuhum bima anzala allah qofka ugu aqoonis badan waxa ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu watacaala waa ilaahay kitaabkiisii ilaahay hadalkiisii qofka ugu aqoonis badan
qofkaasa ilaahay ugu jecel yahay saasuu mujaahid yidhi mujaahidna waa mufasiriinta waaweyneedu ka mid ahaa وقال الشعبي wuxuu yidhi raxala masruuq في تفسير آية إلى بصرة مسروق ayaa wuxuu u safray aayad fasirkeeda ayuu wuxuu u safray meesha basra la yiraahdo faqiila lahu in alladhi yufassiruha raxala ila sham aayadda ninka fasirkeeda yaqaanay wuxuu u guuray sham xaggeeda u guuray fatajahaza waraxala ila sham uu isdiyaariyey haddana wuxuu aaday u guuray isagana sham xataa calima tafsiiraha ilaa uu ogaaday يعني آية فسر كذا نكي يقاني هل كسو قات علمي لبدا ودن أو يسير جوري شام إيو عراق أيو أسفري سيو آية فسر كذا عكرمة وحوليه في قوله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قفك كبحا جوريسا قفك كبحا جوريسا سجوا أهاجر إلهي رسولك حقه ذا يعني هذا آية وحوليه هي طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته waxaan raadiyey ninka magaciisa ayaan raadiyey akrima 14 sano ayaan raadiyey buu yiri حتى وجدته ilaa aan helay ninkaas قال ابن عبد البر ninka ayada ku soo degtay ابن عبد البر wuxuu leeyahay الحافظ المغربي wuxuu leeyahay هو ضميرة ابن حبيب وأنك إلى ضميرة ابن حبيب وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحويري رجع حهلا جها بدأ علمت فسر كذا قرآن بحر كوها علي مكثت سنتين لبس سنة أيام جوجي أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان جوجي لبس سنة عمر لجوجي anigoo rabay inaan weydiiyo labada haween ee isu kaashaday nabiga calayhi salaatu wasalaam labada haween ee isu kaashaday nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan weydiiyo kumay ahaayeen labadee bay ahaayeen ma yamnacuni ilaa mahaabata labadaas sana inaan weydiiyo waxaa ii diidayay heybadda aan ka heybeysanayay isaga fasa'altuhu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi xafsa wa caaisha labadaa waxay ahaayeen xafsa iyo caaisha ayadda fasirkeedu raba inuu ogaado yani wuxuu rabay inuu ogaado labada qof ay ku soo degtay fasirka ayadda macnaheediisa uu ogaado oo hoos u daga qofka markuu macnaha aad garanaysid quraanka waa ku galaya si fiican uu ku galaya quraanka وقال إياس بن معاوية وحويري مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب dadka aan quraanka akhrinayo oo aan garanayn macnihiisa waxay la mid yihiin uu yidhi dad ay warqad u timid oo ay kaga timid boqorkooda xaggiisa ninkii dowladda madaxda u ahaa ay kaga timid warqad xaggiisa oo habeennimo u timid iyagoo aan nal haysan faanuusna haysan warqadii u timid mugdiga gacanta looga saaray warqadii mana garanayaan waxa ku jiro warqadaas waxa ku qoran warqada ma garanayaan taasay la mid tahay buu yiri ma garanay waxa warqadii ku qoran ma hal dilaa ku qoran wa wax kala ku qoran wa mathalu alladhi ya'rifu at-tafsira midka yaqaan tafsiirka quraanka macnihiisu wuxuu la mid yahay kamathali rajulin jaa'ahum misbahun nin faanus yani u keenay faqara'u ma fi al-kitabi marka ay akhriyeen wixii warqada ku qornaa nin faanus u keenay oo isaga nal wata oo ay marka akhriyeen wixii ku qornaa warqada وذكر ابن الحواري أن فضيل ابن عياض ابن حواري وحوش ابن أبي الحواري وحوش أن فضيل بن عياض قال إنه يري لقوم ددبوا وحكوا قصدوا ليأخذوا عنه العلم قوم ربيني كقاتان علمك كقاتان قاضي عياض يا وحكوا لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون
dad cilmi doon ah u yimid markaas wuxuu ku yiri low talabtum kitaab allahi haddaad dalabtaan yani barashada ilaahay kitaabkiisa haddaad dalabtaan lawajadtum fiihi shifaaun lima turiiduun waxaad heli lahaydeen bogsiisho iyo daawo waxa aad doonaysaan inaad ka daawodaan oo jahliga ah ayaad ka heli lahaydeen yiri kitaabka ilaahay ayaad ka heli daawo waxa aad rabtaan oo soo doonteen usoo safarteen aad ka heli lahaydeen kitaabka faqaaluu waxay yidhaheen qad tacalamna alqur'aan qur-aanka waa baranay dheheen waa naqaana qur-aanka waa xifdisanahay faqaala wuxuu yihi ina fi tacalumikum alqur'aana shugla liacmaarikum wa acmaari awlaadikum ina fi tacalumikum alqur'aana barashada qur-aanka aa barateen shugla liacmaarikum waa mashquulin cimrigiinii ah wa acmaari awlaadikum ilmihiina cimrigoodina mashquulin aada mashquuliseen ayuu yahay faqaaluu waxay dhaheen kayfa yaa abaa cali cimrigiini aada mashquuliseen ilmihiinina cimrigoodii waa mashquuliseen saasaa barashadii qur-aanka aada soo barateen ayuu ahaa buu yiri markaasay dhaheen kayfa yaa abaa cali sidee saas macnaheeda noo fasir maxay tahay macnaheeda qaala wuxuu yihi lan taclamuu alqur'aana xataa tacrifuu icraabahu wa muxkamahu wa mutashaabiha wa naasikhahu min mansuuqih yani qur-aanka ma taqaanin uu yihi lan taclamuu alqur'aana qur-aanka ma baranaysaan cilmina uma lihidiin xataa tacrifuu icraabah ilaa aada taqaanaan icraabtiisa wa muxkamahu qur-aanka qeybtiisa muxkamka ah qur-aanka qeybtiisa muxkam waxaa la yidhaha waa waxa halka macno leh oo aan macno labaad suurtoobeynin muxkamkaasaa la yidhaahdaa wa mutashaabihihi kan kiisa mutashaabiha oo isu eg waa qur-aanka qeybta macaani badan ay ka suurtogdo fiihi aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat fi suurati ali cimraan ayay noogu imaan doontaa insha allahu tacaala muxkamkiisii mutashaabihiisana waa inaa kala taqaana muxkamihi wa mutashaabihihi waa inaa kala taqaana wa naasikhihi min mansuukhihi kan wax nasakhay waa inaad taqaana kii la nasakhay iyo kan wax nasakhay inaad kala socdo kala taqaana erer faidaa caraftum haddaad aqoonsataan arrinka istaghnaytum can kalaami fudayl wabni cuyeyna haddii aad taa barataan uu yihi waa ka maarmaysaan hadalka fudayl isagaa iska hadlayo yani fudayl ibnu ciyaad waa ibnu cuyeyna iyo ibnu cuyeyna fudayl ibnu ciyaad waa ninka hadalka watay iyo waxaad ka maarmaysaan ibnu cuyeyna isna caalim weyn ah marka tafsiirka ahamiyadiisa ayay ku tusinaysaa hadalka salafka walisalafi raximah llahu min hada aljins ma laa yaati caleyhi alxasr qur-aanka marka waa in macnihiisii la yaqaan qofku inuu macnihiisii yaqaan waxaa loo dan leeyahyna waa macnaha lafdiga ajaruu leeyahay haddaad macnaha garanaysa haddaad macnaha garanayn haddaad akhriso qur-aanka lafdigiisa waa mutacabad isaga yani ayaa maaragtay lagu cibaadaystaa oo lafdiga waa lafdigiisa waa cibaada qur-aanka marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu yaqaan qur-aanka macnihiisa oo wuxuu akhrinayo uu garanayo oo wacdiga iyo hadalka ilaahay ku waramayo subxaana wa tacaala iyo axkaamta iyo xaaraanta iyo xalaasha waa inuu qofka garanaya macnaha marka tafsiirka waa sidaas qofka inuu garto macnihiisa qof qur-aankii akhrinayo aan macnihiisa garanaynin yani waa wax aad iyo aada u dhib badan inta waa yani tafsiirka waxay ka yidhaahdeen salafka insha allahu tacala waxaan bilaabaynaa suurat alfaatixa suuraddan tafsiirkeeda waa suurad muhiim ah qur-aankana iyada lagu furfurtay ma aha inay wixii u horeeyo soo degay tahay laakiin waa misxafka lagu bilaabay saasaa faatixa loogu magacaabay marka faatixa waxaa la yihi maki waa suuraddan waa makay kusoo degtay ama madiinay kusoo degtaa la yihi labada waa la isku khilaafay marka faatixada yani faatixada
aada iyo aaday suuraddan u weyn tahay. waa suuradda lagu akhriyo qur-aanka ragcad kasta maalintii aan aada u akhrino, gaar ahaan faatixada macnaheeda waa inaad taqaanaa, maxaa yeelay qeyb waxay ka qaadanaysaa khushuuca salaada aada ku khushuucayso. faatixada waxaa loogu magaca alfaatixa, midda furfuraysay ayaa la yidhaahdaa. faatixada yani waxaa magacyo kalena way leedahay. waxaa la yidhaahdaa umulkitaab, yani kitaabka hooyadiisna waa la yidhaahdaa. waxaa la yidhahdaa oo kale umulqur'aanna waa la yidhaahdaa, qur-aanka hooyadiis. waxaa soo arooray xadiis imaam axmed wariyey min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaala, nabiga wuxuu yihi qaala liumi lqur'aan, wuxuu yihi nabiga hiya umu lqur'aan, waa qur'aanka hooyadii. wahiya suuraddan faatixada waxaa la yihahdaa asabcu lmathani, toddobada lagu celceliya. 7 aayadood ka kooban tahay, marka waa 7 lagu celceliyo. 60 سوجرا دقيتينا كان داوة جرتكم TBN. waxaa kaloo la yidhaahdaa wlqur'aan alcadiim, qur-aankii weynaana waa tahay buu yihi nabiga caleyh isalaatu wasalaam. iyadana qur-aankii weynaana way tahay. ilahi wuxuu leeyahay walaqad aataynaaka 7 min almathani wlqur'aan alcadiim. iyadoo lagu abaal sheeganaya nabiga caleyh isalaatu wasalaam ayaa waxaa la yihi waxaan ku siinay walaqad aataynaaka 7 min almathani, 7 lagu celceliyo ayaan ku siinay, iyo qur-aankii weynaa. labadaba faatixa loola jeeda halaleeyahay. 7 la sheego 7 aayadood suuradda ka kooban tahay. qur-aanka weyn oo la sheegayna waa iyada lafteeda. mufasiriinta qaar waxay leeyihiin 7 almathani waxaa loo jeedaa 7 suurada oo dhaadheerka ah oo duwalka ah. qur-aanka weynna waxaa loo jeedaa faatixada. laakiin xadiiskan wuxuu tilmaamaa labadiiba in iyada laisku yidhaahdo. ibnu jariir atabari fi tafsiirihi can abi hureyra wuxuu soo saaray can rasuuli llahi sal ly wasalam qaala inuu yihi hiya umu lqur'aan, faatixada waa qur-aanka hooyadii. wahiya faatixatu lkitaab, waa kitaabka tii lagu furfuray. wahiya 7 lmathani, waa 7 lagu celceliyo saas oo kale. marka alimaam bayhaqi wuxuu wariyey sidoo kale cali ibn cabaas, uu ka wariyay cali iyo ibn cabaas iyo abu hureyra iyo inay ku fasireen 7 min almathani bilfaatixa. 7 almathani waxay yidhahdeen ragga mufasiriinta ah faatixada loo jeedaa bay yidhaahdeen. magacyadeeda yani waxaa ka mid ah sida uu sheegay siduu sheegay azamakhshari kitaabkiisa fi lkashaaf, siduu sheegay wuxuu yihi waxaa la yidhaha suurat lkanzi, suuraddii kaydka oo kanziga ahayd. waxaa la yidhahda sidoo kale walwaafiya, tii dhammaystirnayd. wa suurat lxamdi waa la yidhaahdaa. wa suurat salaa, suuradda maaratay salaada waa la yidhaahdaa buu yihi. magacyadaasna way leedahay. athaclabi can sufyaan ibn cuyeyna wuxuu leey kaana yusama faatixat alkitaab, waxaa la dhihi jiray faatixada kitaabka alwaaqiya, midii ilaalinaysay oo qofka akhrista ka ilaalinaysay sharta. sidaasoo kale cabdullaahi ibn yaxya ibn abi kathiir wuxuu leey isaga anahu sa'alahu saa'ilu can qira'ati alfaatixa khalfa alimaam. waxaa la weydiiyey akhrinta faatixada imaamka gadaashiisa, faqaala wuxuu yihi can ilkaafiya tas'al, ma waxaad weydiinaysaa midii kaafiga ahayd, midii dadka ku filnayd, alkaafiya. kii saa'ilka aha wuxuu yihi qaala saa'ilu wama alkaafiya, kaafiyada maxay tahay? qaala wuxuu yihi alfaatixa, faatixada la yihahda alkaafiya. amaa calimta anaha takfi can siwaaha, soo ma ogiduu yihi faatixada inay ka kaafinaysa wixii ka soo haray. walaa yakfi siwaaha canha, waxa ka soo harayna aysan dadka ka deeqi karaynin. soo ma ogid faatixada inay aad kaga maarmi karto wixii ka soo haray, laakiin iyadu aysan wixii ka soo haray faatixada aysan ka maarmi karaynin faatixada. soo ma ogid buu yihi. saasaa kaafiya loo yiri, midii isku filnayd. sidaasoo kale wa akhraja aydan can shicbi ana rajula ishtakaa ilayhi wajacu lkhaasira. shicbi waxaa laga wariyay ninaa u yimid oo ka xanuunsan kelida,
يعني كلذا كحنوسا فقال وحول عليك بأساس القرآن واحد لازم تابل قرآن كأساس كيسة لازم أو أخرس أو كتب ماشي كحنون يسو قال وحول وما أساس القرآن كأساس كيسة محوية قال وحول فاتحة الكتاب وكتاب كفاتح حديثة الإمام البيهقي في الشعب وحو قصة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه النبي إن الله أعطاني فيما من به علي إلهي وحو إسيي وحياله وقال الله يستينا كمدة فاتحة الكتاب كتاب كفاتح حديثي وقال وحو يري هي من كنوز عرشي إلهي نوحو عرشي كيد كيسة أي كمدة إسناد كيسة ضعف يا كجر حديثك ضعيف الجامع الصغير يشغل باني كسو أروري مركا ساسو كله إسحاق بن الرهوية في مسنده عن علي نحوه مرفوعا هذا الكلام ساسو كله أي سو أروري إسحاق بن الرهوية الإمام القرطبي مركو فسرها مقعيدة شيء سورة الفاتحة وحو شيء تضبو مقعو وحو شيء لبي طبعا مقعو شيء الإمام القرطبي رحمه الله وانا تضبو آيات وهي 7 آيات بلا خلاف تضبو آيات سيد ابن كثير وتفسير كيسو كشاقي إمام القرطبي وحو كلا أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات ومدى وحي يسكر أحسنته وكو إجماع دي علماء إن فاتحة آياته تضبيهين إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها 6 وهو شاذ نكاس حسين الجعفي ليرى هذا يوحي واللح آيات وأنا شاذ نكاس هي عمر بن عبيد نك ليرى هذا أصلا وحكدك إياك نعبد آيات أيوكدك فهي عنده 8 و6 آيات كتأسيكتيس وهو شاذ سجن هو شاذ أصلا يعني وانين gees u baxay ayuu noqonaya ninka marka magacyada suuradda yani suuradda magacyadeedaas waxay tusinaysaa waxay ku leedahay kathratu al-asmaa tadullu ala sharaf al-musamma ay dhihi jireen marka suuradda yani waa suurad aad iyo aad u cajaa'ib badan fadliga suuraddan axaadiista ku soo aroortay imaam bukhaari imaam axmed iyo daawuud iyo nisaa'i min xadiid abi saciid ابن المعلى وحشي رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يري قال إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام له كيري سعيد بن معلى ألا لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وحن كبرايا سورة أقوين أو قرآنك ودان مركز الاسكودر سورة أقوين أنت هذا مساعد كبحين قال وحو يري فأخذ بيدي كعنتي ذو قبتي بيري فلما أراد مركو دونه يخرج من المسجد نبي مساعدك يو كجرو سا كيري مركي مساعدك قدام عن النبي إنه كبحوا أسفقون ولي إيشيقين قلت وحر يا رسول الله إنك قلت رسولك إلهي وحد يوتري لو علمنك أعظم سورة في القرآن وحنكبر السورة أقوين قرآنك قال وحر نعم الحمد لله رب العالمين أيضا سورة سأقوين هي 7 المثاني وتضبط اللوع العلي والقرآن العظيم هي قرآن كوين الذي أوتيته الإسيي إمام أحمد الترمذي وصحيح يلي من حديث أبي بن كعب نبي قصاصه كلو حكويري قال له أبي النبي حكويري أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها مكو برا سورة أن لقصوا دجنين توراة إيه إنجيل إيه زبور إيه فرقان من أن لقصوا دجنين وحلمده مكو برا ثم أخبره أنها الفاتحة وحو شيغي إنها تهي سورة الفاتحة إمام النسائي ساسو كلو حصول صاري إمام أحمد انتبه في المسلم حديث عبد الله بن جابر وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام حكويري ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن سورة دا يعني وناكسن مكو شيغا قرآن كجرت قلت بلا يا رسول الله سيدي يقول شيغيني ما رسولك إلهي قال وحويري اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها إلا ختمته آخري يعني سورة الحمد لله رب العالمين حديث إسناد كيس وحا كجر بن عقيل يعني أي ما بدنا حجيستي رقك لو رقع علوس صحيحين كوحا كسوغا فضلق سورة دان وغيرهما من حديث أبي سعيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري لما أخبروه مركي أشيغان بأن رجلا رقى سليما بفاتحة الكتاب إنه نن كتفي يعني فاتحة كتاب كانوا كتفي مركي الله شيء وحو يري وما كان يدريه أنها رقية يعني وحا صحابة أو سعوته أي سومرتيان قولوا ميل دقن مركاسا كسيحدين markay ka seexdeen ayaa ninkii sayidka u ahaa la qaniinay daawona way waayeen markaas qolada xalay aan ka seexanaa weydiino in ay daawo hayaan markaas u yimid wax daawo ma haysan ha waa haynahay wax daawo ah laakiin idima siinayno ilaa aad xoolo noo qabataan marka ninkii uu ku tufay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa caafiyay ninkii marka nabiga loo sheegay kaleey salaatu wasalaam marka nabiga hadalkan uu yiri kaleey salaatu wasalaam maxaa ku ogeysiiyay inay tahay daawo yaa ku sheegay inay daawo tahay yaa ku sheegay saasuu yiri marka raaqiyan walatii wax lagu daaweynayna waa la yiraahdaa insha Allah ta'ala intaasaan ku joojinaa casharkeena waa sii wadi doonaa hadii Ilaahay idmo wa jazakallahu khayr ala husn istimaa'ikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 60 هاسا وجرا دقيتينا كان داوة جرتكم TBN. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أقرأ إن شاء الله بقراءة أو برواية البز عن ابن كثير، برواية البز عن ابن كثير، وهذه هي قراءة أهل مكة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كافر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي BN. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan insha allahu tacaala kelmadeenan aan ka sheekeyneynaa sifaatu ibraahim calayhi salaam. nabi ibraahim tilmaamihii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala, tilmaamuhu lahaa oo uu ku mutaystay inuu noqdo ilaahay khaliilkiisii subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalo gaar uu u siiyey nabi ibraahim ayaa jiro, tilmaamo gaara uu ku tilmaamay. waxaa la siiyey isaga keligii lama siinin, waxaa la wadaaga nabigeena calayhi salaatu wassalaam. waxaa la siiyey darajo ah khulla khaliil raxmaan inuu yahay. khaliilka waxaa la yidhaahdaa axadka jacaylkiisa uu ku dhex galay, waad khaliilka ka dhigatid. marka khaliil ayaa ilaahay ku tilmaamay inuu yahay khaliil raxmaan, inuu allah raxmaanka khaliil u yahay. nabigana saasoo kale u ahaa calayhi salaatu wassalaam. wuxuu yihi nabiga xadiis saxiixa uu leeyahay jundub bin cabdullahi albajali radia allahu canhu wuxuu leeyahy samictu nabi sal slm qabla an yamuuta bikhamsin wahuwa yaquul. nabiga 5 beri intuusan dhiban ka hor isagoo leh baan maqlay buu yihi inii abra'u ila allahi in yakuuna lii minkum khaliilun, inuu adinku khaliil ku yeesho ilaahay baan uga bari noqonayaa. fain allaha tacaala qad ittakhadanii khaliilan, ilaahay baa iga dhigtay khaliil kama ittakhada ibraahima khaliilan, si nabi ibraahim khaliil uga dhigtay oo kale. walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila, haddaan qof ka dhiganayo khaliilna oo ummadeyda ka mid ah waxaan ka dhigan lahaa abubakar. xadiiska waa muslimaa wariyey. marka martabada khullada oo heerka khullada ah ilahay wuxuu siiyey nabi ibraahim iyo nabi llahi maxamed calayhi salaatu wassalaam bihada nas. labada nabiba oo labada jaga ilaahay siiyey subxaana wa tacaala
waxay ku mutaysteen tilmaamo ay leeyihiin ayay ku mutaysteen tilmaamaha u horeeyo nabi ibraahim uu ku mutaystay waxa waa taxqiiquhu litawxiid inuu xaqiijiyey towxiidka ilaahay keliyeyntiisa subxaanahu wa tacaala xaqiijinta uu xaqiijiyey towxiidka iyo ka beri noqoshada uu ka beri noqday shirkiga iyo mushrikiinta ilaa maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray in la raaco nabi ibraahim jidkiisii ثuma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahima xaniifan wama kaana min almushrikiin waxaan kuu waxyoonay uma awxaynaa ilayk waxaan kuu soo waxyoonay nabi maxamedow nabigaa lagu jeeda alay isalaatu wasalaam an ittabic milata ibraahima raac diintii nabi ibraahim xaniifan ah xaal u yahay mid toosan oo ku toosan towxiidka khaaliska ah wamaa kaana min almushrikiin kana mid maahayn dadka mushrikiinta ah ilaahay subxana dadko dhan wuxuu amray in la raaco diintii nabi ibraahim yani waxaad qul sadaqa allah fatabicuu milata ibraahima xaniifan wama kaana min almushrikiin qul sadaqa allah ilaah run buu sheegay subxaana wa tacaala fatabicuu milata ibraahima raaca nabi ibraahim diintiisii raaca wamaa kaana min almushrikiin dadko dhanna waxaa la amray diinta nabi ibraahim inay raacaan leanna waa diin saafi ah waa towxiid saafi ah towxiidka xaqiijintiisana waa min ajali alacmaal camal la qabto waa midka ugu weyn inaad towxiidkaada xaqiijiso nabi ibraahim markaa towxiidkiis ayuu xaqiijiyey waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay nabi ibrahim inuu ummad ahaa ina ibraahima kaana umma ilahi wuxuu ley subxana ina ibraahima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin shaakiran liancumih اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم وحوها أمد وها كلجي سأمدها وحمد إلهي أطيعه سبحانه وتعالى مid toosan oo towxiidka ku toosan ama diimaha gaalada oo dhan ka leexsan xaniifka labada la yidhahdo diimaha gaalada oo dhan ka leexsan xaniifan wax allaala diin baadil oo dhan ka leexsan oo u leexsan diinta towxiidka oo saafiga walam yakun min almushrikiin mushrikiintana ka mid ma ahayn shaakiran liancumih ilaahay nicmooyinkiisa mid shukriya ayuu ahaa sifadaasna waa lahaa ilaahay nicmooyinkiisa kuwa mid ku shukriya ayuu ahaa ijtabaahu ilaahay baa doortay wahadaahu ilaa siraatin mustaqiim jid toosanna ilaahay buu ku hanuuniyey subxaanahu watacaala wahadaahu ilaa siraatin mustaqiim وآتيناه في الدنيا حسنة أدونك وحن كسيني وناك حسنا سيني وإنه في الآخرة آخرا لمن الصالحين ضدك الصالحين تأيو كميد يا أوسو صوب أدونك وناك كسيني آخرنا يعني أمة وحل إلى هذا العلماء وحل الجامع الأمة هو الإمام الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به waxaa la yidhaahdaa qofka imaamka dadka u ah oo kulansaday tilmaamaha khayrka oo dhan yani oo lagu daydo isagana lagaga daydo kulansaday kaasaa umma la yidhaahdaa qaanidka waxaa la yidhahdaa qaanidka alqaanid waxa huwa alkhaashicu almutiicu lirabbihi daa'iman waxaa midka had iyo jeer ilaahay u khushuuca adeeca rabbigiis mar kasta ayaa qaanid la yidhaahdaa ilaahay u hogaamiy subxana wa tacaala xaniifka waxaa la yidhaahdaa qofka ka leexda oo la kac uga leexda shirkiga iyo anwaacdiisa oo towxiidka xaggiisa u leexda walam yakun min almushrikiin shaakiran liancumih waana mid ku shukriya ilaahay nicmooyinkiisa subxaana wa tacaala ay qaa'iman bishukri nicmati rabbihi caleyh rabbigii nicmooyinkiisa ayuu u taagan yahay inuu ku shukriyo marka waxay ka dhashay arrinkaas ijtabaahu ilahay inuu doortay subxaana wa tacaala ilahay inuu doortay ayaa ka dhalatay ijtabaahu rabbuhu wakhasahu bikhallatihi markaasaa ilahay wuxuu ka dhigay khaliilkiisii wahadaahu ilaa siraati mustaqiim jid toosanna ilahay wuu ku hanuuniyey subxaana wa tacaala ibraahim wuxuu ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa waibraahim aladii wafaa ibraahimkii oofiyey wixii laga rabay oofiyey waibraahim aladii wafaa ibraahimkii oofiyey wixii ilaahay ka rabay subxaana wa tacaala
ay qaama bijamiici maa amarahu llahu bihi waxalaal wixii ilaahay amray oo dhan ayuu la yimid sittiin haasa wujjiraa dhagaytiiteena kan daawachuu jirtu kun TBN. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay ibraahim ilahi wuxuu yihi ina ibraahiima la xaliimun awaahun muniib ina ibraahim calayhi salaam la xaliimun waa dul badane xaliim waa nin dul badan awaahun noqosho badan ilaah yani u khushuuca subxaanahu watacaala oo ilaahay u tadaruca oo ilaahay barya muniib waa mid noqda ee ilaahay u noqda subxaanahu watacaala la awaahun muniib marka xaliimka waxaa la yidhi duu raxma waxaa nin naxariis u saaxiib ah wa safxin cama yasduru minhum ilayhi min azallaat laa yastafizuhu jahlu ljaahil walaa yuqaabilu aljaani calayhi bijurmi yani tafsiir asacdi ayaa saa ku fasiray wuxuu leeyahay xaliimka waxaa la yidhaha qofka naxariista badan leh oo wasafxin iyo dhaafid safxiga waxaa la yihahdaa inaa qofka wixii uurka kugu jiray aad iska xasho oo aad waxbaba u qabin intaad iska cafisay wasafxin camaa yasduru minhum ilayhi min azallaat waxaa dadka ka imaanayo oo gaf ah oo sibxasho ah oo ku gafid ah ayuu iskaga jeestaa laa yastafizuhu jahlu jaahil ma kiciyo nin jaahila jaahilnimadiisa hadduu ku jaahilnimo sameeyo walaa yuqaabilu jaani calayhi bijurmi qofka dhib u geystana dhibkiisii ugama abaalmariyo oo yani kama jazeeyo awaahun fiiri waa sifo xaliim marka u horeyso yani waa sifo cajaa'iba wa awaahun wa kathiiru tadaruci wadikri waducaai walistigfaar awaahna waa yahay oo ah mid tadaruc ba tadaruc waxa la inaad ilaahay isu dulayso subxaana watacaala oo isjejebiso oo ilaahay dhulka isu dhigto addoonnimadaadii aada muujiso oo aada yani ilaahay barida subxana watacaala wa tadaruc badnaa buu yihi kathiira tadaruc wadikri ilaahay xusidiisana alla xusid badnaa waducaai iyo baryada waa baryo badnaa kaana kathiira ducaa qur-aankana waan ku aragnay wax badan walistikfaari iyo inuu dambi dhaaf weydiisto ilaahay subxana watacaala sifaadkaasna waa lahaa tadaruc dikri ducaa iyo istikfaar afartaa shayna waa lahaa waa sifo yaab leh muniibun uu yihi ilaahi subxaana watacaala ay raajicun ila allahi bimacrifatihi wa maxabatihi waliqbaali calayhi walicraadi cama siwaa mid ilaah hadii jeer u noqduu ahaa ilahay haddii u noqdo subxaana watacaala ilahay u noqoshadiisa waa barashadiisa iyo jeclaantiisa iyo inaad u qaabishay ilaahi subxaana watacaala sifadaa waa lahaa towxiidka wuu xaqiijiyay nebi ibraahim calayhi salaam sifada labaaduu lahaa waxay ahayd inuu deeqsi ahaa karamuhu wa sakhaa wuxuu ahaa deeqsi deeqsina waa ahaa kariimna waa ahaa ilahay wuxuu ka sheekayey subxaana watacaala marti soo martisay nebi ibraahim hal ataaka xadiidu dayfi ibraahim almukramiin ma kuu yimid sheekada martidii nebi ibraahim ee la karaameeyey almukramiin idakhaluu calayhi faqaaluu salaaman qaala salaamun qowma munkaruun ragaa soo martiyey wuu marti geliyey wuu salaamay wuxuu yihi idima garanayo laakiin soo dhowaada ilahay markaa wuxuu ku tilmaamay inuu yihi faraaqa ilaa ahlihi fajaءa bicijlin samiin wuxuu u dusay reerkiisii yani raaqa ilaa ahlihi iyagoo aan dareemin inuu ka tegey ayuu hoos u dusay soo noqodkiisi wuxuu la yimid bicijlin fajaءa bicijlin samiin yani dibi dhaylo ah oo yani buuran ayuu keenay hilibkiisii soo dhigay saastuu oga baxay iyagoo aan maaragtay dareemin ayuu ka baxay haddana isla markii usoo noqday isagoo hilib wada yani samiin ah faqarabahu ilayhim qaala alaa taakuluun waa usoo dhaweeyey markaasuu yihi miydaan cunaynin alaa taakuluun cuna cuntada waa ka duwan tahay iyo miyaan la cunaynin alaa taakuluun yani waa ereyga kariimka karamka tusinaysa alaa taakuluun miydaan cunaynin maaragtay saas oo kale marka deeqsiyuu ahaa deeqsinimada iyo karamka waa sifo cajaa'ib ah deeqsinimada bukligana waa sifo xun oo kasoo horjeeda marka wuxuu ahaa kariim lama sheegin
qof saalix ah ama ambiyo bakhiilaho gacan adag lama sheegin ambiyada dhan waxay ahaayeen deeqsiyaal nabi ibraahim saasaa lagu tilmaamaya deeqsiya nabigeena saasuu ahaa waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam qof wax weydiiye weligii maya ma dhihin ala yidhi waxaa laga yaabaa qof isagu inuu yidhaho guriga galo oo guryaha dhan kusoo wareego wax ma haysaan guryaha dhan intuu kusoo wareego uu soo waayo guriga waxba ma yaalan la yidhahdo ma hayna la yidhahdo marka nebiga macelina saasoo kale qofka sakhiga ah sakhaawada qalbiga sakhinimada waxay asal ku tahay qalbiga la xiriirta iimaankana waa ku xiran tahay qofka inta iimaankiisu badan yahay ayaa sakhinimadiisuna badan tahay markuu iimaankiisa kor u kaco oo iimaankiisa aad u sareeyo waxba lama aha la ilaahay wuxuu yiri wabtaqi fi ma ataaka Allahu daar al-aakhirah wixii ilaahay ku siiyo oo dhan waxaad ku raadsataa daarta aakhira ku raadso muuminka wixii soo galaba ilaahay buu ku raadsanaa subxaanahu wa tacaala nabiga gurigiisa weligiis kuma baryina la yiri maaragtay shay kuma baryo sadaqa ah oo in la bixiyo ay ahayd gabalka intay ka dhicin ayuu bixin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabi ibraahim deeqsina waa ahaa kariimna waa ahaa sifada kale uu leeyahay waxay tahay sabar badni oo lagu sheegay ilahi wuxuu yihi fasbir kamaa sabara ulul cazmi min arusul nabiga iyadoo lala hadlaya ilahi wuxuu ku yihi sabar nabi maxamed say u sabreen qoladii go-aanka adkayd oo casiimada adkayd oo khatarta ahaa oo rususha ka mid ah kuwaas uu ku jiraa nabi ibraahim waa ibraahim nabi ilaahi nuux calayhi ibraahim iyo nabi ilaahi muusa iyo nabi ilaahi ciisa iyo nabi maxamed calayhi salatu wasalaam shanta ilaahay uu ku tilmaamay ulul cazmiga ah min arusul cazmigana waa dadka casiimada leh oo adkaysiga badan leh oo sabarka badan leh sida ay u sabreen oo kale u sabar ayaa lagu yiri marka nabi ibraahim wuxuu ahaa axad sabar badan ayuu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa yani nabi llahi ibraahim calayhi salaam waxaa ka mid ahaa in uu ilaahay jeclaa subxaanahu wa tacaala ilahay inuu jeclaa caza wajal wax kasta ilahay inuu ka jeclaa xataa ilmihiisii wiilkiisi ismaaciil ilaahay uu yihi gowrac oo uu gowracay nabi ibraahim calayhi salaam yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk fandur maada tara qaala yaa abati ifcal ma tu'maru satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إلهي وحول سبحانه إبراهيم يعني إلهي بو جعله سبحانه وتعالى وحكسنا إلهي بو كجعله وحال أمري وحال الويل كيس إسماعيل مركو صوهنا قادة وينادي يا وحال الويل كذا قورع أمر لغسي ريال لغو يمد وويل يعني aad u ilmo jecel ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la amray waxaa la yidhi wiilkaada gowrac riyada nebiyaashana waa waxyi riyadii markaa wiilka u sheegay ismaaciil wuxuu aaba waxaan riyada ku arkaya oo la amray inaan ku gowraco aaba i gowrac buu yiri ifcal maa tu'mar waxaa lagu amraya yeel ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin waxaad heli doontaa inaan sabro yaad heli doontaa in shaa allahu tacaala nabi ibraahim waa soo kaxay muddadii soo afaystay wixii oo dhan kulli waa soo kaxay maka iyo ola baxay banaankeeda inuu gowraco yani ayuu geeyey banaanka waadiyada ola baxay bas markaa wuu gowracay falamaa aslama watallahu liljabiin markuu u riday jabiinka foolfoolkii markuu u riday halka dambe uu ka gowracayay marka waxa marka ilahi wuxuu falamaa aslama markay isdhiibeen labadoodiiba ilaahay isu dhiibeen subxaana wa tacaala oo foolfool u riday waxaan nidhi wanaadina qad sadaqta ru'ya nabi ibraahim oo riyada runa ku sheegtay waa rumaysay inaa kadalika najzi lmuxsiniin wafadaynaahu bidibxin cadiim wuu gowracay ismaaciil marka ismaaciilna xagga la geeyey meeshina ilahay wuxuu ugu bedelo ku furtay ismaaciil wan weyn oo meesha gowracan ayaa yaala marka jacaylka ilaahay uu qabay subxaana wa tacaala yani waxay ahayd yani xadaafay ahayd ilaa hada alxad ayay ahayd nabiy llaahi ibraahim calayh salatu wasalaam khullada ilaahay uu siiyey caza wajal oo khayrka uu ka dhigay
sifaadkaas ayaa looga dhigay saasaa loogu magacaabay khaliiluraxmaan khaliiluraxmaan saasuu ahaa yani khaliilnimadana waa jago ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nabi ibraahim iyo nabi llahi maxamed calayhi salaatu wassalaam wiilka marka la gowracay ilahay wuxuu yihi subxana ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin kan waa imtixaan cad ayuu ilaahay subxana wa tacaala imtixaan cad waa imtixaan weyn ilmahaadii salaada tuka lagala yahay salaada tuko markaas soon waxaan waa xaraan iska dhaaf waxaan waa waajiba samee waxaad samayn karto oo culays badan ba aan lahayn salaadaha hadii laisku dardaro 25 daqiiqa kama badna tiiba 5 daqiiqa la tukanaya marka kama badna 5 daqiiqo marka 25 daqiiqa waaye 12 24 saac 25 minute aad tukan laga yahay qofkii yani iska dhaaf ilmahaada gowrac hadii la yiraahdo wuxuu dhihi lahaa qofka waxyaab loo يعني المهد الجورة حد اللي لها محوسة مين لها محوده لها يعني واحد يجيب عن الأهيد مركا وحو أهمية فولية أمرك إلهي سبحانه وتعالى وحكى سان وحكى إلهي كجعل عز وجل قف مؤمن كحر إلهي مركا إنه وحكى سكوهر مريا عز وجل وامتحان إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صفات كاس النبي إبراهيم إلهي كسفي عز وجل وحرى قفك مؤمن كأمرك درجة خلبة يادن قارن لكن صفاتك إنها تكسفوده ونبي إبراهيم إلهي كدورتي سبحانه وتعالى إنها تسكدر أنت كسفو بكرته إنها كسفو سي إلهي سبحانه وتعالى وحوين كوسيو عز وجل إلهي وحوين كوسيو إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وحان النبي إبراهيم عليه السلام إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى إن وجدك سينا مرسيو دينتي سيو كان إلهي نسيه سبحانه وتعالى كو إلهي وعابد إلهي نقدقه سينا إبراهيم إلهي وعابد سيو إلهي وجعله سبحانه وتعالى عز وجل إلهي إذن كيس إن شاء الله تعالى النبي إبراهيم كعبده للسي هو أحد كبيت كالسي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نبي إبراهيم وحيره ساقي يحدث ويلكس إسماعيل مركا تيرك إلسايين أي وحي هذين إله نجا أقبل إله نجا أقبل هذا الكاس ربنا تقبل منا إله نجا أقبل أنا وهذا كان كيابي وكياب مركان فيري إله نجا أقبل وح إلهي أقبل سبحانه وتعالى ويسعدا إنك أنت السميع العليم إله حتمتك وحمق الله وحأجيبه علمك أنا له حلب أب اسكا أقبل إلهي وكا أقبل سبحانه وتعالى مركا وحوي النبي إله نجا دك أنا لبدينا كعبد الإسيسة لبا مسلمين إله نجا دك ربنا واجعلنا مسلمين لك كوه جانسنو إسوكا ديبا إله نجدك ومن ذريتنا عرورتنا إله كدك المهننا إله كدك هو مسلمين وهذه كوه جانسن أمة المسلمة لك وأرنا مناسكنا إله نتصي مناسكك عماش حجك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله نجا توبة أقبل أذيك تواب الرحيم نبرة السويري إلهي سبحانه وتعالى وكا أقبل بيتك كعبدي ودسائي ما أنت وارث ما كسديته إلهي سبحانه كدقي إلهي وأقبل سبحانه وتعالى وحوي العرورتي ذي وحن أقسوتك إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إله المهي وحن أقسوتك وحليلي وادي أسقي المها أقسوتك عنو كيسي وأن ضد لهين وأنبياء لهين ووحبا لهين أيالي أقسوتك بيشاس oga soo tagaalaya beeshii uga soo tagaa soo ilaahay u hoggaansan subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi markaa nabilah ibraahim beeshii uga soo tegay rabbanaa liyuqiimu salaa ilaah waxaan uga soo tegay duriyadeedii waadi aan waxba lahayn inii taraktu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin waadi aan wax ku yaal biyo lahayn
oo waxba lahayn oo lagu dhimanayn uga soo tegay caruurteeda adigaana amri ilaahay rabbana liyuqiimu salaa ilaah waxaan uga soo tegay meesha inay noqoto meel salaada lagu oogo liyuqiimu salaa salaada inay oogaan oo meesha noqoto meel salaada lagu oogo fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraat waxaad dadka quluubtooda wax kamid quluubtooda ilaahu u dun meesha ay tagaan thimaarna ilaahu ku irsaaq ilaahi subxaana watacaala ceelka zamzama ilaahay ka soo saaray maka meel salaad lagu ooga adduunkana waxa ugu weyn maka meel ay ku tukanayso 3 milyan yani 4 milyan oo aad moodayso dadka inay yihiin waadi rogmanayo marka salaada loo socdo oo ay salaada xoogaa ka dhiman tahay dadka aad moodayso biyo la soo rogay oo mashaariq al-ard muqaaribaha ka yimid salaadii saa u oogayo meel aan maka ahayn ma jirto saas ilaahi subxaana watacaala rabbana liyuqiimu salaa fajcal afidatan min marka ilaahi waa aqbalay subxaana watacaala ilaahayna hana siiya sifaadka wanaagsan ee nabiyullahi ibraahim ilaahay ku sifeeyey subxaana watacaala si ay ilaahay subxaana watacaala noogu daro kuwa ilaahay uu u naxariisanay caza wajal jazaakum allahu khayr insha allahu tacaala waxaan wadi doonaa tafsiirka qur-aanka kariimka insha allahu tacaala wuxuuna ka bixi doonaa insha allah towfiiq broadcasting network shabakada towfiiq lilbath almubaashir shabakadaasu ka bixi doonaa insha allahu tacaala isaga ayaan insha allahu ayaan kasii dayi doonaa haddii alla idma biidni illahi alkariim waxaan rajeynaya in laga faa'iidaysto lana socdo si ilaahay qur-aanka noogu anfaca caza wajal جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي ان